SJ iyo waxaan arkaysaan waa fake ya waa wada fake SJ Sihani oo Khalid Mullah u jeedido meesha fadhiyo waa fake waa murayd waa horu dhinta Khalid Mullah yaxbul waa horu dhinta qofku markuu dhintana isagoo cayilan buu soo baxaya hadana ya Omar waa jaamac dalaal weeye haye inaad aro macaan waa ku bareeyaa live ka xir ku jirta adigu inaad aro kuma jira aniga iyo adigu roommate baan ahaan jiray dadka waa isaga dhowna ogaaga qaadaya wallahi baan qaadanaya billahi tallahi Omar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabtayda qaaliga jeclahay soo dhawaada meel kastoo adduunka ka joogto waxaa idin leeyahay farxad ku waara asxaabta qaaliga ah channelka subscribe noo saara like sidoo kale noo saar like aad ay muhiim noogu tahay noona sii share garay asxaabtiina qaaliga oo sii share garay asxaabtiina qaaliga soo dhawaada ee idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba asxaabay sida iiga barateen bo channelkan channel qurxin waaye maxanaha qurxinta ayaan kusoo gudbiyaa marka insha Allah waa rajeynayaa inaad ka wada bogateen dhamaantiinaba marka insha Allah sabta qaaliga ah inta caafimaad qabto caafimaadka Allah u saa'idiyo intaan caafimaad qabina caafimaad Allah siiyo oo taama inta aan qabina dambi dhaaf Allah uga dhigo caafimaad ayana Allah siiyo intii dhimatay Allah u naxariisto oo u horeeyaan waalidiinteena insha Allah asxaabtayda qaaliga aan jeclahay marka waad mar labaad soo dhawaadaya idin leeyahay channelku waa channelkeeni asxaabay maanta sida arkaysaan ama shaashada aad ka arkaysaan ama muuqaalka aad aragteen oo hordhaca ah ma idin wado maanta wax qurxina ma idin wado marka maanta maxaa idin wadaa isa arkaysaan oo aad looga wada naxay baraha bulshada Omar ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad taama Allah siiyo caafimaad Allah siiyo marka Soomaaliyay Omar ha loo soo duceeyo inuu ilaahay caafimaad siiyo oo caafimaad taama ilaahay inuu siiyo ha loo soo duceeyo asaga iyo intii islaam oo maxaa la dhahay ummadda Nabi Maxamed alayhi salaam oo ayagana sidoo kale xanuunsan ayagana caafimaad Allah siiyo asagana caafimaad Allah siiyo Soomaaliyay ha loo soo duceeyo waxaa la dhahay anaga qofkeena haddii wax yar oo noqdo anaga waalno haddaan Soomaalinahay anaga sii waalnabo marka qofka haddii uu maxaa la dhahay xanuun yar oo lagu arko macnaa dhagaxyaan ka daba qaadanayna waa la bursanayaa hadduu fiyoobaa xataa uu waalanayaa qofkaaseti Soomaali ayagaaba dadka waashabo waxaa intaas u leeyahay qofka bini'aadanka waxaa fiican markii lagu arko wax yar in loo duceeyo kulli dad badan waa wada duceeyeen anagana aan u duceeyno anigana waa u duceeyo ugu horeeyo inuu ilaahay caafimaad siiyo waxaa intaas uga galan leeyahay oo aan u leeyahay anaga ayaa Soomaalida ayaa waalayso siiba dadka kommentiyada ebel dhagaxyaba lagu waalay dadka oo waa la tooriyeynay hadda tooyadu waxayba noqotay commentiga in qofka lagu waalo in maxaa la dhahay qolal laga soo furto in maxaa la dhahaa maalintaas oo dhan qofkaas la hadalhayo in la sii waalo maxaa la dhahay qofkii ku sii waalanaya sababtoo asagaba social media ayuu ku jiraa ani hadda waxaan u arkay social media qaasatan TikTok dadkaba in lagu waalabo qofka hadduu fiyow yahay xataa in lagu waalayo saas ma ahan reer comment ayagana sidoo kale sidaas ma ahan ayagana dadku inay waalaan ma ahan macnaha waxaa fiican qofkaaga markaa ku aragtid hilibkaagi waa waajirkaagi waa dhiiggaagi markaad ku aragtid wax yar oo isbedela in loo duceeyo ilaahay ha ku caafiyo ilaahay ha caafiyo in la wada dhaho ayaa wanaagsan marka anagana inaan waalna ma ahan shalay iyo maanta baraha bulshada siiba TikTok waxa aad u haysto Omar ayaa aad u haysto ama sheekadiisa ha ahaato ama asoo live ku jira ha ahaato marka aniga aad uga naxay aad uga naxay marka kulley dad badanna way ka wada naxeen wax ku farxay horta inuu jiro ma umaleynaayo oo dadkoo dhan way ka wada naxeen marka laakiin macnaha anigu hadda waxaan uga galan leeyahay reer comment reer maxaa la dhahay TikTok siiba reer TikTok horta waxaan aaminsanahay ani meeshaas meel fiican inaysan ba ahayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr ha nooga dhigo dad khayr ugu jirana way ka buuxaan dadaan khayr ugu jirana way ka buuxaan waa la isgarab ordayaa qofkii hadduu xataa uu
ومحل هاي في يوبالنا حتى وابلغوا ولا ومشى سيتي سبحان الله إله ربي وأمانسو أصلاً إلهي سبحانه وتعالى عافي ما تصي هذا أول حي والله الله عافي الله عافي الله عافي وعافي عن إن عن مر والب إسكت دعين ومر والب إن إسكت دعين دعاء وحواي صدق حدي قفات قفا كجرو وإلهي محل هاي وأقبل أيتها الدعاء ديس marka hadii Soomaaliya oo dhan social media waa laga buuxaa siiba TikTok aad looga buuxaa ani ma dhahayo YouTube ma dhahayo TikTok aad looga buuxaa qof walba ha ahaado ama nooc walba ha ahaado laakiin hadii qofkaagi walaalkaagi wax yar aad ku aragtid waxa wanaagsan inaad dhahdid ilaahay caafi in la dhaho keena aan hanuunsanayna ilaahu waa soo hanuuni inaan dhahno ayaa wanaagsan marka anaga hadda waxaan leenahay ama tiimkeyga anina aan u horeeyo ilaahay subxaana watacaala Omar ama barbar labadaba waa loo yaqaana allaha caafiyo caafimaad allaha siiyo ilaahay agtiisa waxay ka tahay malahan inuu caafimaad helo marka allaha caafimaad ha siiyo dad badan oo waxaa jiro oo social media aan ku jirin ayagana oo aan caafimaad qabin dad badan oo waxaa jiro oo sariiraha saaran ayagana sidoo kaleeto oo jiran إلهي سبحانه وتعالى وبريا إلهي إنه عافيمات تامة وسريع على أوصيه والدم بدافع وبدله أنت عافيمات قبتنه إلهي سبحانه وتعالى وأني أغهري إلهي إنه عافيمات كنو سائدي إلهي كبريانا أنت لمتي ووالدين تينه إلهي وبريايا إنه إلهي سبحانه وتعالى وأيغانه جانت الفردوس كورابيو صعبتي قالي عن جعلها مركا waxaan usoo galay kaliya maanta inaan Omar u duceeyno insha Allah mar walba waxaa wanaagsan inaan isku duceeyno oo qofkeeni hadii uu wax yar aan ku aragno ama barbalan yar aan ku aragno inaanan anaga sii waalin oonan u sii horseedin maxaa la dhahay wadada dhibaatada leh aan u sii horseedin oo aan commenti ugu qorno Allah ku caafiyo dad badan oo shalay u dadaalay waa jireen oo life u soo wada koray oo maxaa la dhamaantood maxaa la dhahay wada duceynay oo haddana la hadlaay oo haddana maxaa la bariyay ayaa ku jirtay inuu life ka baxo marka alxamdulillah ayaan leenahay mar walbo ilaah ayaa u mahadcelinayna ilaah ayaa mahad iskale mar walbo waxaan leenahay haddaan waaga uu noo bariyo habeenkii inta seexano waaga noo bariyo annagoo caafimaad qabno alxamdulillah ayaan leenahay marka Soomaaliya marka halkan waxaan kala hadlayaa Soomaalida dhammaanteen Soomaaliya wadanahay Soomahan inaan qofkeena markaan aragno inaan u duceeyno ilaahay rabbi raxmaano caafimaad si aan dhahno inaan commentiyada kala daba orodno comment u wada qorno inaan fiidiyowada maxaa la dhahaye ruwaashi aan dhahno wax fiican ma qofkiyo fiyo in la sii waalo marka ilaahay ha caafiyo ayaan leeyahay asxaabteyda qaaliga aan jecelahay marka maanta ma idin wadin wax maxaa la dhahaye qorxina ma idin wadin sida titalka ka arkaysaan ama fiidiyowga bilowgiisa ka arkaysaan oo mar Allah caafiyo insha Allah waa rajeynayna saacadaha soo socda war wanaagsan inaan helno oo caafimaad u qabo marka alxamdulillah rabbil caalamiin idinka dhageysanayana hadda caafimaad qabin caafimaadkiina Allah إلهي عافيمات هاي دنسيو هذا عافيمات قبتينا عافيمات كالله يدين سائديو هذا مراد ليدين مراد كين الله يدين سهل أو مراد كينا خير الله يدين كقديب أي عدن لا يهاي أني كان مراد لا يهاي مراد كيغا إلهي خير أي قديب مراد كين الله يسهل مراد كيغا أو خير الله أي قديب مركا إن شاء الله سعبتي دقالي عن جعلها وايدك الستة وأني قرح دمر أوفيشيال طوع waxaan idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqon dambe oo xiiso leh fiidiyowgan fiidiyoga xigo inta aan ka gaarayno insha Allah